kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyay maanta oo ah maalinimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 10 May qodobada barnaamijka dhammaantood waxay noqon doonaan wararkii ugu waaweynaa ee kasoo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe iyo sida xaalku uu marayo hadeer haddaba wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaanu ku soo qaadanaynaa barnaamijka qodobka ugu horeeya waxaynu ku bilaabaynaa dowladda Kuwait ayaa maanta sheegtay in weerar lagu soo qaaday yaa soo weeraray Kuwait yaa daba socda yaa weerarka ku qaaday ilaa hadda lama yaqaano waxay leedahay saakay ilaa duhurkii diyaarada droonisa nafta noo keenay oo weerar nagu soo qaaday haddaba marka laba arin ayaa meesha ka soo baxaysa yaa soo weeraray Kuwait yaa se weerari karaa daba wararka qaar waxay leeyihiin kow waxaa laga yaabaa inay awlaadda Iiraan soo weerareen oo ay ka mid yihiin kuwa Ciraaq jooga inay weerarka qayb ka noqdeen maadaama Kuwait iyo Ciraaq ay daris yihiin halkaas weerarada looga qaaday dhanka kale dad kale ayaa waxay qabaan Israa'iil oo iyadu ka soo horjeeda marnaba dagaalkan waxa kan in la joojiyo foodada inay sii socoto rabta inay iyadu ku lug leedahay sidii awalba Iiraan ay ugu eedeysay dhowr jeer hore oo ay tiri Israa'iil ka dambeysay weerar lagu qaaday dawladaha Khaliijka haddaba marka xaalka lama yaqaano laakiin sida ay hadda sheekadu marayso ayaynu barnaamijka ku bilaabaynaa haddaba wargeyska la yiraahdo Sharqul Awsad ayaa sheegay in dawladda Kuwait ay sheegtay inay la tacaamulayso oo ay markaa la dirirayso diyaarado droonisa oo cadawga ay leeyihiin kuwaasoo ay sheegtay inay soo galeen hawada dalkeeda maanta haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray waxaa la leeyahay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Kuwait ayaa saakay oo axada waxay sheegtay in ciidamadu ay markaa la tacaamulayaan oo ay la dirirayaan tiro ka tirsan diyaaradaha drooniska ee cadawga kuwaasoo la sheegay inay soo galeen hawada dalka Kuwait haddaba wararkii ugu dambeeyay Kuwait waxa ay sheegayaan in diyaaradahaasu ay dhowr yihiin oo markaa ay weerar ku soo qaadeen haddaba afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Kuwait ninka la yiraahdo General Rukni Saud Abdulaziz Adwan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay la dagaaleen oo markaa ay ka hortageen si loo ilaaliyo amniga waddanka iyo nabadgelyada dadka muwaadiniinta iyo dadka kale ee ku nool dalka Kuwait way laftirkooda marka ma sheegayaan meesha weerarku kaga yimi marka yaa soo weeraray lama yaqaan waana la soo weerarayay waa diyaaradaha maartay hawadeena soo galay waa kuwaasay ku hayaan waa Kuwait marka iyadu maxay tahay Kuwait waxay ka mid tahay dawladaha Khaliijka waana dawlad yar waana dawladda ugu dhibaatada badan dagaalka Iiraan u saameeyay ayada Iiraaniyiintu iskuma fiicna siyaasad ahaan markaba ay leedahayna meesha ma gudbi karo xaalku marka waa ku xun yahay iyagu waxa leeyahay bishii Abriil oo dhan hal markab oo shidaal wada xataa ma gudbin kuwa kale basar iyo waxbay ku marsadaan dawladaha kale Khaliijka Iiraan iyo waxbay iskala macaamilaan marka qoladan marka dhibaato gooniya iyagu halka ka haysataa la leeyahay qodobka halkaas kaga gudbayna qodobka labaad Qatar waxay sheegtay markabkii ugu horeeyay ee gaas wada oo ay Qatar leedahay inuu ka gudbay maanta Hormuz u fiirsada tan iyo markii dagaalku u dhacay Hormuz la xiray dawladda Qatar gaaskii ugu horeeyay ay dibadda u iibgeyso waa markii ugu horeysay markab weyn oo gaas tiro badan wada oo dawladda Qatar ay leedahay inuu Hormuz ka gudbo marka sheekada beesha taag waxay tahay iska gudbay marka maya iskama gudbin shaqo badan la qabtay wasiirka arrimaha dibadda telefoonno kula xiriir Iiraaniyiinta Mareykanka u tagay Mareykanka la hadal Iiraan la hadal halkan la hadal haddii la rabo xisaabta dhiib wax walba markaas saakay meeshaas u maray haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray
waxaa leeyahay markab qaada gaaska oo ay Qatar leedahay ayaa ka gudbay marinbiyoodka Hormuz waana markii ugu horeysay markab noocan oo Qatar leedahay uu ka gudbo halkaas tan iyo markii dagaalka uu ka dhex qarxay Iran iyo Mareykanka haddaba bayaan rasmi ah oo la soo saaray ayaa lagu sheegay sida ay qortay shirkad laga leeyahay dalka Qatar in markaasi uu ka soo dhaqaaqay markabkaas dekadaha Qatar dekada leeyahay Ra'sul Lavan waxaana la sheegay in xamuulkii uu waday uu ku dejinayo dekada leeyahay Qasim oo ku taala dalka Pakistan marka waa la rafaadsan yahay meesha u fiirso dagaalka maalinkuu bilowday ilaa hadda kuwaydan wax ka sheegayna laakiin Qatar noo jeedaan laakiin Qatar iyadoo dhowr markab oo kala badeecay waxba u maraaleen gaaska iyo waxa kan day waa halis hal mar hadii wax lagu dhufto waa gubanayaan ma marka cabsiya ka jirtay markabkii ugu horeeyay ee gaas qaada ayaa halka maanta u gudbay dawladda maaratay Qatar marka warkaas isaguna halkaas u maraa wararka kale ee dhinaca dhiilada wata ama colaada wata ee Hormuz ka imaanaya waxa kamid ah Iran way dhaaratay dhaartan waa iska socotaa maanta oo dhan waa la soo hanjabayaa Trump hanjabay Iran hanjabtay taas nolol maalmeedka ka mid tahay laakiin tan waxa la xogaa way ka duwan tahay fariinta ay Mareykanka u dirtay waxay tahay Mareykanku mar kale hadaa isku daydo inaad dhibaatayso maraakiibteena xamuulka ee baddaas maraya ogow annaguna waxaanu toos u garaaci doonaa meelaha saldhigyada kuwa ay gobolka aad joogtid macnaheeda xabad joojid ma jirto waay mar haddii gantaalkii bilowdo oo jugta la iska geliyo wax kale ma jiraan marka digniintaas ayaa saakay ay soo saareen nimankii Iiraaniyiinta ah haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Al-Jazeera ayaa qortay Iran waxay soo saartay digniin inay bartilmaameedsado hadii la isku dayo in la bartilmaameedsado maraakiibteeda waaweyn ee shidaalka qaada in ay markaa iyaduna ka jawaabi doonto oo ay markaa weerar qaadi doonto dhanka kale iyadoo la sugayo inay ka soo jawaabto qorshihii nabadda ee Washington ay sugayso aysan weli soo jawaabin ayay hanjabaadan haddaba soo dirtay haddaba wararku waxay sheegayaan sida laga soo xigtay ciidamada badda ee taabacsan ilaalada kacaanka Iran inay sheegeen inay ku jawaabi doonaan haddii dhibaato loo geysto oo la bartilmaameedsado maraakiibtooda shidaalka iyo maraakiibtooda kale ee ganacsiga Iran ay leedahay inay iyaguna ku jawaabi doonaan weerar xanuun badan oo ay ku qaadi doonaan saldhigyada iyo maraakiibta badda Mareykanka ee ku sugan gobolka marka waxay leeyihiin maraakiibteena shidaalka iyo maraakiibta kale ganacsiga haddii wax dhibaato ay soo gaaraan oo mar kale la qabsado ama waa la dhibaateeyo waxaanu toos u weerari doonaa maraakiibta Mareykanka ee gobolka jooga iyo saldhigyada uu gobolka ku leeyahay marka taa macnaheedu dadku waxa ku fasireen waxa waaye xabad joojin ma jirto waa markaas meesha way ka baxaysaa xabad joojintii marka welina marka fariintii waa laga sugayaa wada hadalkii waa imaanaynaa iyo ma imaanayno hindisii waa ka soo jawaabnay weli waxay leeyihiin daraasadaan ku haynaa daraasadaas xalay waa taa ka hadlayna shiinaha lala sugayaa odaga sida la leeyahay markuu shiinaha tago 14 bishan ayaa marka shiinuhu leeyahay anaa idin heshiisiinayay kaale isagoo markaa tabcaan oo tagi doona halkaas marka iska daba wareeg Mareykankuna waxay cadaadis ku saarayaan waxay rabaan intuusan shiinaha odaga aadin inay maartay nimankan ka soo jawaabaan oo wada hadalkii isagoo socda uu tago shiinaha uu yiraahdo nimanka wada hadal loo socda marka sheekadaas halkaas ay maraysaa wararkaas ayaa ugu waaweynaa warka kale waxay saale maanta aan idin hayo wuxuu yahay Israa'iil wax kasta ciidankeeda waa lagu arkay waataan shalay ka sheekeynayna ciidamada cirka qaar kamid ah inay u basaasayeen Iran barnaamijyadeena ku jirtay waa dhageysateen hadda waa la iskala soo gudbay waxa la leeyahay saldhigi maartay makhaasiinadii hubka ciidanku lahaa
ayaaba la bilile qaysaraale waa la qaadanaaba xaggee la geynaa lama yaqaano qaarna waxaa laga iibinayaa waxaa la dilay oo la dagaalamaya sida xisbullah iyo qolooyinkan iyo waxaasaa laga gadayaa reer gaza iyo qaarna yahuudda dhexdeeda ishubaynaysaba marka dambe iyaga dhexdooda nagta iska saaray sheekadii marka way xumaatay hub fara badanaa laga waayey meeshii ay ku jireen oo sanduuq maartay makhaasiinadii lagu kaydinayo hub fara badanaa lagala baxay haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyay sheekadaa laga qoray guutooyin ayaa maaragtay ciidamada ka tirsan ayaa wax bilileqaystay waxaana la sheegay inaan la garanayn ilaa hadda hub la xaday oo ciidamada Israa'iil dhexdooda markaa laga xaday haddaba wararku waxay sheegayaan hubka la xaday inta nooc uu yahay oo ilaa hadda la soo saaray wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan ilaa 30,000 oo rasaas ah in markaa lagala baxay saldhigga la yiraahdo Sidee Tiimaan oo ku yaala dhanka koonfurta waxaa sidoo kale la xaday 70,000 oo rasaas ah oo iyaguna laga qaatay saldhigga militariga ee ku yaala waqooyiga Joolaan oo markaa ay xooga ku haysato Israa'iil iyadoo sidoo kalena la sheegay in marka la isku daro 100,000 oo rasaas halka ay ku maqan tahay dhanka kale waxaa iyana maqan qaybo ka mid ah qoryaha baastooladaha iyo sidoo kale qoryaha halista ee sawaariiqda ee markaa garabka laga gano waxaa sidoo kale la waayay hoobiyayaal iyo sidoo kale hanaanka difaaca horumarsan qoryaha culus iyo boobayaasha darandooriga u dhaca iyo weliba qalabka habeenkii wax lagu arko oo ay ciidamadu isticmaalaan intaasoo alaabood ayaa laga xaday oo markaa malaayiin dollar ku fadhida sida la sheegay yaa qaatay ma naqaano alle marka dowladii Israa'iil ahayd dhexdeedii laga dhax kaluumaysanay dhanka waqooyiga saldhigyada ku yaala wixii laga xaday kulli xisbullah dhankeeda galeena lagu leeyahay dhankaasaa loo xaday xisbullah lacag keensanaysa hadda Iiraan iyo waxaasi hadda kama gaaraan meelo badan la xiray ayagiyaa laga gadanayaa nimanku waa niman naf haysa marka sheekadan marka waxa leeyahay waa sheeko cajiiba oo hadda soo korortay marka iyagu dhexdooda marka cidii hawlaha ku lugta lahayd ayaa baaritaan lagu hayaa oo la baaraya haddaba qaybtan war hadda soo dhacay wuxuu leeyahay buuq fara badan ayaa ka jira gudaha dalka Ciraaq siyaasiyiinta iyo ragga waaweyn iyo jabhadaha mucaaradka iyo awlaadii Iiraan kulli kadib markii ay soo baxeen xoga sheegaya dhulka saxaraha ee Ciraaq in saldhig qarsoodiya Israa'iil ay ka samaysatay u fiirsada saxaraha Ciraaq ayay waxay ka samaysatay Israa'iil saldhig qarsoodi ah saldhigaas maxay ugu tala gashay lagu leeyahay Iiraan dagaalkeeda haddii diyaarad ay leedahay nagta laga soo saaro duuliyo soo dhaco inay hawsha qayb ka qaataan oo caawimaad sameeyaan oo hawlgalladaas waa meel ku dhow Iiraan xuduudkeeda Ciraaqana saldhiga marka ka dambaysa marka dawladda Ciraaq ayaa wax ka ogaala leeyahay sheekadan iyo Mareykanka Ciraaq degan ayaa iyagu nimanka Israa'iiliyiinta dhulka iska cidlada bacaadka ka samaysta saldhigeeda hadda marka waxaa marka sheekadii la soo ogaaday kadibna nimankii marka waxay leeyihiin awlaadii Iiraan nimanka sababta loogu ogolaaday dhulkeena qayb ka mid ah inay saldhig ka qaataan maxay dawladii hore oo hadda doorashooyinkii wixii looga adkaaday ayaa hawsha ka mas'uulayd marka hadda saldhigii cabsiya la soo diristay waa la ogaaday isaga dhanba marka wax yar oo kooban dagaaladan iyo waxa kan ka hor iyo wax yar la sameeyay qarsoodiyo ahaa dhul bacaada halkaas marka hadda sheekadu ka qasantay wararkaas ayaa ugu waaweynaa wixii soo kordhay maanta axada barnaamijkuna wuxuu kii koobaad ee aan idin soo gudbinayno haddii alla idmo wixii warar kale ee soo kordha barnaamijyada kale ee soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka asxaabay meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay sidaas iyo